بسم الله الرحمن الرحيم وكل وهي برنامجك صباح وناكسن وأنا ما سنتهين بهذا كلسن تي في أنت أسكدب هدي أن كجواب سؤال هذا qaabkay ku soo galeen dawladda Kenya ciidamadeeda dhulka Jubbaland horta markay soo galayeen sanadkii 2012 waqti dheer ba ka soo wareegay almost 9 sano ah hadda waqtigan hadda maanta hadlayno markay imaanayeen kuma runtii kumayna soconin wax magac ah ha ahaato igad ama ha ahaato magac African Union ha ahaado inay magaco United Nations xiriir la leh oo ay ku soo galeen markaas ay wateen ma jirin waxay wateen oo kaliya ciidamada Kenya oo xadka Soomaaliya ka talaabay luqadaas ay wateen markay imanayeen si guud waxaan ognahay in dawladda Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya mutual interest oo ah in dano ba ka dhaxeeya dhan kasta mid shacabka degan labada dhinac waa hal dana dhaqaale ka dhaxeeya dana siyaasadeed ba ka dhaxeeya oo inay dawladnimadooda iskaashadaan bay u baahan yihiin baddi bay xiriir la leeyihiin bariga bay xiriir ka leeyihiin hawada bay xiriir ka leeyihiin waa isku dad shacab markaas dad kala maarmi kara ma aha xogaa siyaasiyiinta waxa yara twist gareyso markay ka arkaan interestigooda meel bay xogaa yaraha qasaan laakiin dadku waa dad aan kala maarmi karin haba yaraatee si aan kala maarmi karin marka markay soo galayeen wax sharciyada meesha wadan qodobka labaad waxa weeye waxay ku soo galeen magaca al-shabaab ay ku soo galeen al-shabaab magaceeday ku soo galeen oo ay leeyihiin al-shabaab baan la dagaalamayna only waxay ku soo galeen intaas waxa oo ay ku baneysteen inay si sharci darro ah ku soo galaan Soomaaliya qodob kale ku soo galeen wuxuu ahaa dantay wateen waxay ahayd Axmed Madoobe oo markaas siyaasad ahaan siyaasiyiin reer Kenya ah ay u soo dhiibeen ciidanka Kenya oo yiraahdeen ninkan Kismaayo gee Axmed Madoobe wadeen oo ay galbinayeen waxay u galbinayeen Kismaayo u galbinayeen Axmed Madoobe qodobka kale wateena kaas ahaa qodobka u dambeeya wuxuu ahaa inay san isleeyahay inay Kismaayo qabtaan oo Kismaayo qabsadaan magaalo xeebeed xogaa dhaqaale ay ka filayeen inay qabsadaan intaas oo ahaa inay sababahay u soo galeen haday tahay shabaab baan la diriraynaa de shabaab la ma diririn oo maanta laga bilaabo raas Kamboni iska dhaafay gudaha Kenya iyo xarumihii dawladda Kenya ku weeraraya oo shacabkii iyo meelahay wax ka baranayeen hadda ay wada xiran yihiin ilaa marka dambena baysaskii ay lahaayeen dawladaha shisheeye Kenya ku dhaxlaayeen ay galaan marka la dagaalanka shabaab waxaad moodaa inay ahayd magac ay iska wateen oo ay huwan yihiin oo waxay ka qabteen oo la taaban karaa ma jiro iyo inay isku darko dhan uu yahay caburinta shacabka in la caburiyo way xasuuqa ay ka geysanayaan wali gobolka Gado hadii magac AU ay ku joogan dadka maatida ee laynayo ay ciidamadu laynayaan magdhow ma ka bixiyaan horta waa moogtahay waa arin su'aal meesha ku jirta waaye laakiin marka fiiriso AU bay isu bedeleen iyo Amazon bay isu bedeleen markay muddo yar joogeen kadib oo ay joogeen waxaan ognahay in markay imaanayeen ay dawladda Soomaaliya way diiday baarlamaanka Soomaaliya oo xilligaas jiray wuxuu isticmaalay inay xaq darro tahay waxay ku soo galeen waddankana ka baxaan ciidamada Kenya wuxuu dhan waa la dardaray magdhowga marka muxuu bixinayaa qofka legitimacy ma haysto sharciyad ma haysto yaa magdhow ka qaadaya marka waxa magdhow ka qaadaya inay dhibaato iyo xasuuq geysteen way cadahay yaa magdhow ka qaadaya dawladda markaas jirta oo dawladda Soomaaliyeed oo magdhow uga qaada dadkan shacabka oo dhameynaya hadda aan kula hadlaayo sanadkan hadda aan ku jirno 2020 ah dhameynayaan shacabka oo laynayaan ciidamada Kenya dawlad ka qaado ilaa maalinkaas 2000kii madaxweyne Shariif baa ka ahaa Xasan Sheekh bay soo mareen hadda waxa waqtigiisa gabagaba yahay madaxweyne Farmaajo intaas oo dhan shacabka way laynayeen wayna dhameynayeen diyaaradii la dhacayeen magacay doonaan ba la baxaan wax magdhow ka qaadeen dawladdu kamaysan qaadeen yaa kaloo ka qaadi kara min la helo ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo wixii la mid ah inay ayaguna ay shacabkaas u doodaan oo qofkii maanta la dilay bay dhahan xaqiisa maxaa loo dilay oo loo doodo ururadina waxay dhex degan yihiin Nairobi Kenya dhex degan yihiin yaa kaloo ka qaadi kara waxa ka qaadi kara dadka shacabka oo deegaanka degan oo dib ku dhacayo inay dacwoodaan oo maxkamadaha caalamiga ah haddii ku dalku xaq looga qaban waayo inay u dacwoodaan dadkina wacyigooda intii ma gaarsiisna
oo waxaad moodaa inay maanta markii dhibaato maama iyo carruurteed loo geysto xoolo la laayo TV-ga soo istaagaan waxay leeyihiin waxaas nagu dhacay marka waxay rabaan dad aqoon leh oo dadkaas ka naxaayo Soomaaliyeed inay hadda qaadaan codka asaga ah caalamka u gudbiyaan baa laga rabay tiina ma dhicin waxaad moodaa dadkii wacyigood inay ku baraarugsanayn marka ha ahaato dawladda Soomaaliya oo markastaba jirta ha ahaato urur caalami ah ha ahaado shacabka degan wadanka deegaanka degan Jubbaland oo la laynayo especially Gedo degan oo la laynayo intaas oo dhan waxaad moodaa inaysan wali hore u dhaqaaqin marka magdhow ma jiro way isku darka waa su'aal ayadana meesha ku jirto Sacuudi runtii muhiim ah runtii waxa la dhihi karaa gaabin lama yiraahdo gaabin waxa la yiraahdaa qofka markuu hadda ordo ma ogtahay oo yara daalo hebel uu gaabiyay laakiin still uu ordaya qofka wuxuu ka gaabiyay orodkii xoogga uu ka gaabiyay marka gaabin waxa la dhihi karaa inay hadda wax qabteen hatta wax engage gareeyeen isku dayeen inay dadkan la dhibaateynay dhibaatada joojiyaan haday isku dayeen hatta dawladihii soo maray oo ay u suuroobi weyday waxa la dhihi karaa way gaabiyeen laakiin whatsoever isku maysan dayinba qoraal publica loo gudbiyay anagu maanan arag madaxweyne ama ra'iisul wasaare taagan oo leh war waxaan ma aqbalayna maanan arag ma jiraan golo wasiiro oo leh waxa uu ka socdo ma aqbalayna maanan arag marka gaabin lama yiraahdo laga soo bilaabo xilliga Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh laga soo bilaabo ilaa maanta lagu keeno mid kastaba dawladda Kenya waa isqabanayeen marka dambena waa la heshiinayeen oo way iskala macaamilayeen sidoo kale waxa la dhihi karaa gobolka Gedo runtii ayaan daro badan baa ka taagan way og yihiin shacabka Soomaaliyeed way og yihiin dawladii Soomaaliya oo dhan inay mushkilad ay ka taagto marka dawlad waxa uu leeyahay maamul baa ka jira maamulka Axmed Madoobe oo ay soo galbiyeen hadduu yahay kufsiga iyo laynta diyaaradaha ay ku laynayaan iyo askarta Kenya ay gabdhaha kufsanayaan oo miiriyaha ku jiro waxa aniga aan ka been abuurnaya ma aan sheegaya ma aha waxaan iska sheegaya si xamaasad leh ma aha qof kasta oo Soomaali ah oo af Soomaaliyan ku hadlaya fahmaya hadduu Google-ka geliyo ama YouTube-ka geliyo gabdhihii lagu kufsaday Beled Xaawo xoorihii ciidanka Kenya ay ku laayeen ceel waaq iyo dhamase ilaa iyo Raskamboni ku laayeen shacabka lagu gumaaday xuduudda dadka degan laga bilaabo Raskamboni ilaa iyo Malkaariye 800 kilomitir bay ku dhowdahay qof kasto Soomaali wuxuu kiri karaa YouTube-ka waxa aniga aan kan keenaya ma aha okay intaas dhacayaan Axmed Madoobe iyo maamulkiisii iska macnaha iska waxaad aan ku sheegana garanaynin way joogeen wali qoraal ay ka sameeyaan iska dhaafay one language oo laga hayaa ma jiro soo darteed marka waxaan dhihi karaa gaabin lama yiraahdee xataa la isku madayin in wax looga qabto dadkaas dhibaataysan waayahay gudoomiye darbiga laga dhisayo xadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan degmada Beled Xaawo iyo kiiska badda ee heeg yaallo misla xiriirana isleedahay ha xiriir bay leeyihiin waayo ma ogtahay xuduudda Geneva Convention waxa kamid ah sharciyadii early qarniga 19 soo baxay waxa kamid ah in xuduudda badda ay markas raacayso xuduudda bariga way wada socdaan marka haddii aad xuduud badda leedahay wadan xuduudda bariga ku jango'an tahay xuduud bariga hadda la jiido hadana la qalluuciyo bad ama xaga loo qalluuciyo oo bidixii mid loo qalluuciyo ma jiro straight line way oo saa isu haysto marka Kenya maadaama ay hadda bad Soomaali loo gacan galiyay oo xilligii madaxweyne Shariif madaxweynaha ahaa oo Umar Cabdirashiidna uu ahaa prime ministerka oo Cabdiraxmaan Abshakuurna uu saxiixay heshiiska ahaa in badda Soomaaliya lagu wareejiyo dood la galiyay ah oo ilaa maanta doodeedii ay hay'taalo sababta ay Kenya marka uu qabsatay waxay inay badda qaadato si ku qaadan kartaa in leenka qalluuciso xiriir weyn baa ka dhaxeeya waayo sida xiriirka moogtahay sharciga caalamiga uu sheegay waxa waaye Geneva Convention waxa ku qoran in xiriirka badda uu laynka xadka badda wuxuu xiriir la leeyahay laynka xadka bariga marka laynka bariga ayuu marayaa laynka badduna marka laynka bariga oo xoogaa markuu socdo badda uu gaaro inuu ama midig u qalloocdo ama bidix u qalloocdo ma jiro marka waa straight line aan la leexleexin karin waaye Kenya maadaama uu damac ka galay badda Soomaaliya cid u sahashayba dawlad Soomaaliyeed waaga jirtay oo kameel gaar ah u sahashay
waxay marka rabtaa Kenya inay hesho inay baddaas ay qaadato say ku qaadan kartaa inta laynka uu saxan yahay ma qaadan karto laynku mas intuu saxan yahay ma qaadan karta bariga waa inay marka laynka bariga soo qalluuciso arintaas marka waa arinta ay keentay malkaariib uu ka soo bilowdaa oo Beled Xaawo u jirto 6 kilomitir u jirto ka soo bilowdaa xadka calaamadii uu gumaysiga Ingiriisku galiyay waaga ayada ah inay bixisay isku dayday ilaa dawladda Soomaaliya xilliga Xasan Sheekh waxa loo diray dad soo fiiriyo mas'uuliina xilliga Farmaajo 2018 January bay u soo direen ayagana ilaa wasiirka arrimaha guud xilligaas uu tago xadka laftigiisa waxay marka isku dayeysay inay laynkaas qalluuciso ilaa Beled Xaawo xadka uu si slide ah oo aan la fahmaynin uu soo galo kadib markuu dhaafaba si slide uu soconaya meesha ku adreskiisana waxa waay marka badda laynka iyadu ka rabtay ku doodisay ku aadisay doonaysa marka it's not only Beled Xaawo magaalo yaro Dhamase la yiraahdo xogaa u jirta soo iyo gudaha u soo galaya Elwaaq oo dhan waxay galaysaa dhanka Kenya way soo soconaysaa Dhoble xaq gudaha galaysaa Ras Kamboni iyo wadamadan degmooyinkan xuduud saaran kulli gudaha Kenya galayaan si laynka badda loo qabadsiiyo arintaas ayada arin cadeynteeda muuqata waaye dawladda Soomaaliya markastaba ka xiraliyaha heeg kaga doodayay si badda ay loogu dagaalamo laakiin si xaqiiqaha waxa u jiro inuu Axmed Madoobe u sahlay dawladda Kenya in markay Beled Xaawo shacabku mudaharaadeen wati ay dumiyeen siligay dhiseen oo shacabku kacay Elwaaq sidoo kale waxay dhiseen waa la dumiyay hadda waxay ka soo bilaabeen Ras Kamboni bay hadda aadeen waayo ciidamada Axmed Madoobe u jooga Axmed Madoobe marka inta badan dadka ciidamadiisa ma filay inay wiilasha yarka ay dalkooda iibsanayaan oo maleynayo waa dad Soomaaliyeed wadaniyiin ah laakiin siyaasadda lagu hagayo wiilasha yarka ah waxay keenaysaa in ayagoo arkaayo ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaq sameeyaan xuduudda ka sameeyaan ayagoo waxba ka qaban karin waxyaabaha aan aragnay oo markaan Kismaayo nagu joognay aan cadeynayna waay waxaan kaloo ognahay in dadka laynta la laynayo xuduudda degan oo diyaaradaha lagu garaacayo shacabka wuxuu ka soo bilaabanayaa Beled Xaawo afkeeda Dhamase ku garaacaysa ciidamada Kenya xuduudda wixii ka dhow Elwaaq ku garaacayaan ilaa Diif iyo waxay ku garaacayaan Gariley Dhoble area-deeda ilaa iyo shacabka degan xuduudda inta badan dawladda Kenya ciidamadeeda meelaha ka jooga cadaadis bay ku hayaan sababta maxay tahay inay ka dheeraadaan bay doonayaan xadka si ay hadhow laynka u qalloocsadaan arrimahaas marka waxaan ognahay in maamulka marka jiray oo Axmed Madoobe inuusan weligii ka hadlin oo dawladda Kenya oo kala macaamilay waa maamul ayagu ay keensadaan iska leeyihiin waxaan hadda ognahay oo ogtahay talaabadii uu qaadaba waaga hore waxaan arki jiray maamul goboleedyo hore oo jiray oo markay dawladda Soomaaliya ay wada hadlaan Addis Ababa aado Tigreega u taga oo Tigreega uu xogta siiya kana soo qaata go'aanka labaad hadda Axmed Madoobe ka haray markii go'aan meel lagu qaato waa inuu hadda Nairobi tago warbixinta u geeyo ciidamada Kenya haddana uu ka soo qaato go'aanka labaad oo Soomaaliya kula soo laabto waa shirkii hadda Samareeb 1 iyo 2 uu joogay hadda Nairobi ku maqan waxa laga soo celiyay marka waxa la yiraahdaa ma tagi kartid amarka la dhiibaya bas ma tagayo marka waa wax unfortunately ah oo shacabkana iyo dadkanaga haysto marka xiriir bay la leedahay in la leedahayna way muuqataa dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya oo markastaba kii cusub oo yimaadaba waxaan ugu baaqaynaa xuduudahan maanta la dhigay aabayaasheen awooyaasheen gabdhaheen iyo eeyaasheen baa ku dhamaaday oo god u galay in maanta anaga ka aqoon badan waagaas ka dhaqaale badan ka tiro badan in maanta dhulkanagii ay Kenya ku ciyaarto oo shacabkanagii ay xuduudaha ku leyso oo badanadii ay ku muranto oo xuduudanadii ay qalluuciso sax ma aha markaan saas leeyahay anagu colaad ma qabna Kenya waa dad darisaanahay Ilaah baa iskaana baday mana kala guuri karno laakiin markay haltaa ka xuduudda soo galaan yaa in la dhahawaay waa ma santiin